waata mar aan buugga akhrinayay ayaan waxaan ku arkay xigmad aan u qornayd sida tan yacni qoysku siduu u dhaqmo ayaa ubadkiisu dhaxlaa marka maxaa ula jeedaa ergaas waaya waa mahadsan tahay qoysba suu u dhaqmaa ubadkiisu dhaxlaa mowduuca hogaaminta qaybihiisa dambe ku jira waan filayaa waxaan ka soo sheekeeyey hogaaminta qoyska oo qoysku inuu u baahan yahay waxaad maqashaan shirkadaha hogaamin u baahan dowladaha la hogaamiyaa ururaha la hogaamiyaa waxyaabaha waa maqasheen dhegihiinna waad ka baxeen ay ku bateen laakiin buug waxaa ku jirta hogaaminta qoyska mowduuc ah oo aan u malaynayo ilaa 30 beej inaan uga hadlaayo oo sidii qoyska loo hogaamin lahaa qaybta waddamaysa waxaa ku jirta kelmadda uu sheegay walaalkay oo qoysba soo u dhaqmaa ubadkiisu dhaxlaa waxaan soo qaatay kelmadda ka soo qaatay laba nin oo riwaqooyi ah fanaaniin ah oo filim yar oo kooban youtube-ka soo geliyey oo ay ku soo qaateen jawaan iyo kii kale iyo sooraan ayaan kelmadda ka soo dhegtay inay ka soo dhegtana buuggaa ku qoray buugga kama tegin qof wixiis aniga ma sheegan labadaa oday waxay sameeyeen filim yar oo ay uga hadlayeen laba famili oo walaalo ah laba nimo walaala midna cabbaa yahay jaadcun yahay darogista yahay reerkiisii maxaanku idhahaa jahwareer iyo dagaal iyo faqri ay ku nool yihiin iyo ninkii kale oo maxaanku idhaha ilmihii iskool geynaya waxbaraya habeenkii ciyaalkii waxbarashadii weydiinaya ayaan arkay marka waan soo qaatay qisadaas wanaagsan qisada marka waxaan ku soo daray sheeko kale oo xamar ka dhacday nin baa iiga sheekeeyey wuxuu yidhi deris baan waxaan lahayn labada reer laba nin oo isku baawar xagga dhaqaalaha ah oo meel ka wada shaqaysaa yaa kala qabay oo hay-aduu shaqeeya isku mushaara labada reer deriska waxay u bixiyeen buu yidhi bila iyo bi'iya waa laba gabdhood oo hooyooyina oo min 10 cunug haysta mid waagu markuu bariyo iyo ilmihii u istaagaysaa iskoolaad ku kala diraysaa nadaafadoodii ka fikiraysaa meeshu ku maqan yahay og tahay daba socotaa midna waagu markuu bariyo gambar qaadataa oo xaafadda ka soo horeysay sheeko la fariisataa maxaa la yidhi bay tiraa gabdhaha kale ay tiraahdaa qofkii soo mar maxaa la sheegay ilmihii marka dan waaridkii aabbihiina waa shaqo tegay hooyadii guriga maamulaysay hooyadu maamulaha guriga waayo hadday maamulku xumaado waaridka oo hogaamiyihii gurigana maqan yahay wax badan baa xumaada maamulihii guriga shaqadiisii buu qabsan waayey ilmihii marka waa lumeen derbiyadii istaageen waxbarasho ka seegseegeen daroogay barteen dhibaataa ku dhacday markii ay koreen oo ilmihii soo weynaadeen laba qoysoo ballaaran bay ahaayeen qolo walba sida ay u dhaqmaysay samaysay wuxuu iga sheekeeyey labada nin oo shaqaysan ninkan islaantaan qaba jaadku cunaa bi'iyo ninkeedu jaadku cunaa asaguna waa khabal kale iyadiina jaad ma cunin laakiin markii odagii dayacmay iyo iyada ilmihii dayacda qoraxdu waxay u dhacaysaa guri gabdheed iyadu taagan oo leh maxaa la sheegay heblo maxaa ma la fura heblo maxaa laga sheegay sheekooyinka dee gabdhaha waa taqaanaan yaa wiigga hore la aroostay waxbaa is haysta waxbaa isku dhacay say u lahayd baa ilmihii iskaga wada dhaceen mogta marka ilmihii waxay noqdeen daraaga dhegtad bay noqdeen qaar maleeshiya galeen waa kala lumeen reerkii kale oo deriska ahaa oo isku mushaarka ahaayeenna jaamacaday galeen waxbay akhristeen waa koreen marka reer bila iyo reer biya isku dakhilna waa ahaayeen isku tirana waa ahaayeen waxa kala hormariyey waa managementigii iyo balwad la'aantii iyo taladii reerka dhexaysay marka qoysba suu u dhaqmaa ubadkiisu dhaxlaa labadaas sheekaan ku soo qaatay wax sideedaba xumaada oo bila'aadan ka xun ma jiraan haddii xooluhu abaar kaa galaan oo kaa dhintaan xoolo waa tabcataa haddii lacag lagaa dhaco
oo lacag intaad adoo business ku jira ay kaa khasaarto waa tabcada. wax khasaara waxa ugu liita dadka. wax la investigareeyo oo la maal gashadana dadka ugu fiican, qoyska ugu fiican. laanna dadku hadday xumaadaan oo ilmuhu ka xumaadaan mana qalan kartid, mana gadan kartid. xoolaha ma la gataa oo suuqa la geystaa oo hilib ahaan baa inta loo gato yaa lacagtii lagu soo gatay badeeco lagu iibsadaa sida hadda la sameeyo, ama waa la qashaayo martina waa loo qalaa ama reerka lagu gaajo bixiyaa. waa xoolaha nool. laakiin qof ka xumaaday oo soo taagan mana qalan kartid, mana gadan kartid. waxaad huri karin hanan karin alla dusha ku saar. ilmuhu marka inay halaabaan oo qoyskii nool oo shaqeynaya halaabaan oo Malaysia noqdaan oo drugs addicted noqdaan oo maxaan ku iraahdaa ay shaq caasi noqdaan oo wax ka xun ma jiraan. waxayna ka timid isfaham lahaam ka jirta waalidka. marka yana ku dheeraanine gudbo waa